kooxda ololaha Biden ayaa Donald Trump ku cambaareeyay inuu baraha bulshada ku wadaagay muuqaal muujinaya gaari xamuul ah oo sida sawirka madaxweynaha Mareykanka oo lugihiisa iyo gacmihiisu isku xidhan yihiin. Kooxda ololaha Biden ayaa ku eedeeyay Mr. Trump inuu si joogto ah u kiciyo xasarad siyaasadeed ka hor doorashooyinka November. Afhayeen u hadlay kooxda ololaha Trump ayaa dhankooda sheegay in dimuqraadiyiintu ay ku baaqayeen rabshado baahsan oo ka dhan ah Mr. Trump. Mr. Trump ayaa jimcihii muuqaalka soo dhigay barta Truth Social. Marka la eego ciwaanka muuqaalka waxaa lagu duubay jasiirada Log New York khamiistii markii madaxweynihii hore ee uu ka qayb galayay baroordiiq sarkaal ka tirsanaa booliska magaalada New York oo la dilay xilli uu ku jiro shaqadiisa taraafikada. Muuqaalka ayaa muujinay laba gaari xamuul oo wadada maraya, kuwaas oo labadooduba uu ku dahaaran yahay calanka Mareykanka, calaamaduna ay ku xardhan tahay taageerada booliska. Gaariga labaad ee xamuulka ayaa waxaa lagu qoray ereyada Trump 2024, waxaana sidoo kale saarnaa sawirka Mr. Biden oo gacmihiisa iyo lugihiisa isku xidhan yihiin. Muuqaalka xaysiinta Mr. Trump ayaa waxaa cambaareeyay kooxda ololaha Biden. Trump wuxuu si joogto ah u kicinayaa xasarad siyaasadeed, waana wakhtigii ay dadka isaga dhab ahaan u qaadan lahaayeen. Keliya weydii saraakiisha booliska Capitolo kuwaasoo la weeraraya iyagoo difaacaya dimuqraadiyadeena. Taariikhda markii ay ahayd 6 January ayuu yidhi afhayeenka Michael oo ula jeeda weerar Koongareeska ay weerareen taageerayaasha madaxweynihii hore kadib markii uu si been abuura u sheegtay in doorashadii 2020 laga xaday isaga. Balse Stephen Card oo ah afhayeenka ololaha Trump ayaa u jawaabay, sawirkaas wuxuu ku dhaganaa dhabarka gaadhiga xamuulka ah oo marayay wadada weyn ee dimuqraadiyiinta iyo kuwa ku waalan. Keliya kuma aysan baaqin rabshado ka dhan ah madaxweynaha Trump iyo qoyskiisa. Waxay dhabtii hub ahaan ugu adeegsadeen hanaanka cadaaladda Trump oo xabsiga jamhuuriga u soo magacaabay inuu u tartamo doorashada madaxtinimada ayaa wajahaya 4 kiis oo dembi ah, iyadoo kiiska doorashada iyo tan wax isdabamarinta lacagta ee New York ay yihiin kuwa ugu daran ee maxkamadda la adeegaysan doono ka hor doorashada dhici doonta 5 November. Mr. Trump ayaa iska fogeeyey dhammaan kiisaskaasi. Wuxuu sheegay in loo beegsanayo siyaasad ahaan. Muranka la xiriira sawirka waa doodihii ugu kululaa ee ugu dambeeyey ee isdhaafsanayeen labada musharax madaxweyne. Damciisa ah inuu ku laabto aqalka cad ayaa Mr. Trump wuxuu marar kale kordhiyey ereyada uu adeegsado, isagoo dhowr jeer kuwii loo xukumay ka qayb noqoshada weerarka US Capitolo 6 January 2021 uu ku tilmaamay haystayaala. Waxaa sidoo kale lagu cambaareeyay faallooyin horaantii bishan uu ka dhiibtay Ohio isagoo digniino diray haddii aan la dooran. Wuxuu hadalkan sheegay mar uu ka hadlayay gawaarida dibadda laga soo dhoofiyo iyo samaynta iyo dhaqaalaha ay ku leeyihiin. Kooxda ololaha Biden ayaa meesha ka saaray faallooyinkaas, balse Mr. Trump ayaa ku eedeeyey iyaga iyo warbaahintuba inay khadka ka bixinayaan.